daawadayaal waxaa hadda barbarkayga gan siyaasi maxamed abiib oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliland isla markaasina ay dhawaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliland xabsiga u taxaabeen maxamed ugu horeyn aad soo dhawaanay telefishinka bal waxaad nagu warbixisaa ugu horeyn bal sababta keenta xarigaaga 14 bishii Abriil baa la xiray waxayna ahayd baan umaleynaya mid kamid ah dad badan oo reer Soomaaliland maalin walba iyo habeen walba iyo galab walba waxa lagu xiraa sifo sharci darra oo aan maaragtay shuruucda dalka iyo maaragtay dastuurka dalkaba nidaamka soo jeeda lagu xiraa aniguna kuwaas uma kamid aha runtii waxaan islahay meesha Ilaahay inaan ku soo cashar ku soo qaato oo ogaado inta u dhaxaysa maaragtay saldhiga ilaa iyo maxkamadda inta u dhaxaysa waa cashar weyn baa ku duugan oo muhiim tahay qof kasto bilaadin bari inuu ogaado waxa meesha ka dhax socda marka عبر قادش يتبان سيدي أنا أقول ماشي عسي بلا سوق هذا واحد ماشي كده صعدة ماشي كده صعدة محي تقف أنت اللي سكك سوق قبته يدون وارن لجو سو تشرين يدون لجو سو حيرين واللي بيروح آد لا يابتين هذا أنا قاب كل يسوع بورس كله سو حيرين مركي قبلين واحد اللي يقول في التليفون بالله يسوع دري واحد اللي يقول قبل الولالتين أيها قاعد كتشري إبراهيم ديروتيس تليفون كاجي نو يوريسي أنا مثلا شوك دول كلام خود عيبنا حنتي واحد موديبة مدير ولا نهاية كتعاطك بحدا نادم بالموديبة de أنا أرجع حين تلاقي ما جيسن قف ما ديرين قف ما دباتينين إن أرجع حين تلاقي جيستاتي واحد ويان ده ومشكلة وين وحنا سلايد وامد يستشعب كورن مالني هبين مركز اللي كي بدنا نروح اللي يقولي موبيل كاجا أياس بكار لحظي اللي جلي ورنا بتوق بنا كود سمكار كي مركز جودها قال اللي يقولي مركز سياسة بروح عند الدورة ده واحد كويس جود كورونا فيروس ده بروسس كين تلاقيني مرام به ما هي بدي واحد محمد أبي ودي دعوة نيجي تلاص الليجا تلفون لي صدره وطلياس الليجا ده محمد أبي كهالي واني من لها أنا يلقى في مدينة ما بحسدين لينا مركا وإحنا سليه هو شرع الرقف كستو إن هذا المسلسل حقوق له نقطة عاد قد مقطه ضد كحرن تاسواتها الحمد لله رب العالمين كصباحي وحنا ما هنقي قف كستو شعب كريم سومال لا كم يدوق قيب قاعتين ماشي كصباحه فلا الحمد لكن وحن الله أرهود ما كهلا يا واتكوادي وحويان هذا يمكن سالك ده واحد كحران ضد بدن أرينا قبل ذا كلك كشرين بماشى أود الكشرته وحويان قف كستو أود السوق بطول الصحراء والله سوق هذا يحل كينيا سالك ده هرجيسة أما هرجيسة على السوق هذا دولة واحد ويدينيا قبل كي أود المياه لبابي سالك ده دقمة بور بمياه لبابي حبس ده بور بمياه لبابي محكمة دي قبل كي يتيرف عنك يتي دقمة بور بمياه لبابي ما حد خلاص قرية سالك ده حتى ومباكو حنا qof burcal laga keenay kuma xidhnayn qof berbera laga keenay kuma xidhnayn qof laga keenay ceerigaabyo la saanood kuma xidhnayn imka Cabdiwahaab saaxiibkay boorama laga soo qabtay habeen bal la soo guuray halkan la keenay CID de sabab loo soo qaadaa ma jirto ilaa boorama maxkamadii baa jirta qaybtii baa jirta booliska saldhigii baa jira waxaan u arkaa de cadaadis dadka la saaray moogtay dawladdu waxaan leedahay dadka ayaan la kicina laga dayay cadaadiska la saaray gaarka oo qofka boorama dambi ku galay de maxkamadda degmada boorama lagu qaaday gobolka boorama lagu qaaday dambigiisa way maxamed maxaad maanaysaan xarigaagu sababaha aniga xarigayga waxa yiraahdo waxaan ku soo xirnay qoraalad ka sameysay coronavirus gudiga aad ka qortay adeynaan wax dhaliilo oo gudiga dhaliilo oo qoro oo xog bixiyo dastuurka dalka ay fasaxaniga dastuurka dalka ayaa fasaxay wadankan waa dimuqraadi maxaa la yiraahdaa imika waxa yiraahdeen markiis eedayda waxa la yiri bulshadu argagax galiya la yiro amni darro abuur waxaan ku dhahan muqriba sitaan ku amni darrada qoraal baan qoray marka de coronavirusna ka hortagga kaliya tii laga hortagi karaa waxa weeyaan bulshadu ay cabsi ay dareento moogtay imika good example baan siinaya bulshada ruushka madaxweynihiisu wuxuu soo fasaxay waxa la wixii libaax iyo shabeel way waa argagax gelin waxa loo baqay gelinaya bulshada waa in coronavirus laga baxsado marka de adu wixii eeday keenay maxkamadda dhamayso wax maalintii warisa maxkamadda la geeyay maxkamaddu waxay tiri waxaan de case ma hadii qofkan uu galay marka haddana waa iska xidhnaa 20 maalmood waxaa jirtay in dadka qaar ay sheegayeen xarigaagu sabab ahaa qoraal aad Facebook ku qortay oo aad ku sheegaysay in labadii qof ee Hargeysa laga helay cudurka ay baxsadeen arrintaas ma jirtaa oo dhamaan waxa la wixii qoraalan qoray oo dhan kaasoo kale tamaanaya lagu soo yeediyay kuwa lahayn macnaha ka fogaada kuwa lahayn waxa weeyaan dabakaayay war dadka yalla baabin wax kasto meeshan qoro dhab wala keenay oo eedo maxkamaddu ku jirtay marka mid kale aad la mooro karba yaa mid kale aad la mooro karba sida hore ugu dhawarsay waxa xabsiga ku jira Cabdiwahaab oo boorama laga soo qabtay iyo gudoomiye xisbiga mucaaradka ah wadan ee gobolka Awdal oo isna la sheegay inuu ku xidhan yahay barnaamijkaasi isku soo wadoo maxad kala socota xarigooda waa sharci darro wuxuu qoray Cabdiwahaab waxaan u maleynayaa inta anagu xidhnaa buu Cabdiwahaab dhowr jeer ka hadlaan malanay xarigayga
arrinta lagu maageen aniga waxay la muuqataa in arrinta xarigayga ay tahay uu ka hadlay oo nin dhalinyaro ah dee sabab loo soo qaado halkan Hargeysa loo keeno oo hooyadii loo soo dhaafiyo xaafadii loo soo dhaafiyo oo halkan loo keena Cabdiwahaab Daargagixiso maaha dembi weyn qaranka muu gelin qof muu dilin boorama xabsi lagama waayin sabab loo soo qaado halkan loo keena anu maba garanayba waxay gobolada kale awdal la qabaana maaha dawladda waxa la arrinkaasi arrin fiican maaha waa arrin sharciga baalmarsan waa arrin bulshada kicinaya laga daayaan leh way sidaa sheegtay gobolka awdal dadka laga soo xidho waxa la keenaa Hargeysa laakiin gobolada kale saad sheegtay dadka laga soo xidho waxa lagu xidhaa gobolada magaalooyinka goboladaasi maxaad malaynaysay idinka inay fartiidu ku godanto sababta dadka loo soo ururinayo loo keenaya maxay la wallahi su'aashaasi anu waaba taan ka jawaabi kari waayba haddaan la xiri lahayn oo saldhiga dhexe tagi lahayn ma baan ogaadeenba dadka qof kasta waa la soo qaaday boorama lagu qabtay islaamnimada la soo transfer garanay halka la keenaya arrin wax kiisoo waaweyn oo dadkaasi galayna ma jiro duwa Cabdiwahaab oo kala waxba qortaa lagu haystaa haddana boorama laga soo qaaday marka waxa la ninka Cabdiwahaab iyo gudoomiyaha xisbigana xorriyadooda loo soo celiyo waxa weeyaan dadkana waxa weeyaan laga daayo qaybtoodii lagu xukumo maxkamadoodii lagu xukumo oo halka maartay bulshadu adeegyadii sharcigu halkaas yeelano garsoorkii baa yaala waxa yaala maxaa la yiraahdaa xeeraalintii baa joogta xabsi bay leedahay saldhig bay leedahay halka lagu xukumo dadkan ilaalinaysa ugu dambeyn maxaad ugu baaqlay shacabka gobolka awdal waxaan ugu baaqayaa waxa weeyaan in wixii nidaam darro ee sharci darro in iska diidaano bilaadku waxa weeyaan waxa la niman hadlan hooyadiina qadis inay yiraahdaan war dadka iyaga xarig dambiga galay dambi ka badan ka dad galan ma gelin maxaad u qaadaysaa magaalada xabsi bay leedahay ku xirta xabsiga inay yiraahdaan taasaan ugu baaqayaa Cabdijabbaar Maxamed Xuseen telefishanka Ariel Hargeysa